Baliga shangale oo ah kaam yar oo dhanka waqooyi ilaadii 5 kiiloomitir kaga beegan buuhoodle waa deegan ay ku nool yihiin reer guuraa aad u tira badan isla markaana uu kuyaalo balaadhan oo ay ka hirgalisay dawladii dhexe ee uu madaxweynaha ka ahaa Allah u naxariistay maxamed. Baligani ayaa xiliga uu buuxsamo waxa ka caba xoolo tira badan oo ka soo kala aroora deegaan fog sidoo kale waxa mararka qaar ceelasha baliga looga dhaamiyaa gobolka buuhoodle. haddaba dadka barakacayaasha ah ee degan Baligani oo aanu booqanay ayaa walaalaha islaamka iyo cid kasta oo samaha jecel ka codsaday in loo dhiso masaajid maadaama deegaanka shangale hadda ay degan yihiin boqolaal qoys oo barakacayaal ah isla markaana xoolihii kaga dhamaadeen abaartii xumeed ee aynu soo marnay. TV-ga Samnews oo nagu soo booqday masaajidka aad seeskiisa aragtaan ee aanu dhignay seeska waxaanu ku dhignay seeska xooggayaga iyo dhagaxaanu soo ururinay iyo kaalmaati aanu muslimka meesha degan aanu la kaashanay baanu ku dhignay masaajidka seeska yarka awoodaanu haynaana ma jiraan dadka halkan deganina waa dad 15,000 oo qof gaadho ruux waxaanu codsanaynaa cid kasta oo bini aadana oo muslina oo wax tari karta oo dhisi karta inay masaajidka nagala qayb qaataan nala dhisaan ummadda halkaa joogta dhirtay ku tukataa oo bannaankay ku tukataa oo gudihiisu waa waxa yare jingada yare aan mar hore taagneed ciirtay qoryaha ku taagtaagan suuli ma leh oo barkad ma leh oo isagu waa seeskaasan waa bilowga cid kasta oo wax noo qaban karta ee masaajidka nala dhisi karta waanu u baahannahay dal ha joogeen dibad ha joogeen wixii qof kasta oo bini aadan iyo masaajidka gashadana isaga gashada annaga waxna mu tarinay isaga wax staray waxaanu codsanaynaa cid kasta oo nagala qayb qaadan karta inay nagala qayb qaadato masaajidka anigoo ah magacayga leeyahay Jaac Yuusuf Maxamed Dhala waxa akoonka lambarka lagu dirayo lacagta ee masaajidka lagu caawinayo odayaasha aan ku wada socono waa 063 497 kaasaa lagu diri karaa kaasaa kayd hayanoo ah magacayguna waa Jaac Yuusuf Maxamed Dhala waxaan joogaa shangale masaajidka aad arkaysaan ee seeskiisa uu dhigay oo meel kale oo masaajida ayna qaryadaas lahayn oo mudb islaamo farbadan ay ku nooshahay oo qaxootigina uu dhinaca ku hayo oo 2,080 qoys ay degan tahay oo meel kale oo ay ku tukatay ayaan lahayn oo ummadda islaamka guri kale ay weyday oo halka u soo cartay waxa yare inta leegay jingada ay yimaadaan oo meel kale lagu tukado aan lahayn oo taariikhdeed meeshaas oo masaajid lahayd dadka islaamka ah qaryad kastaba ha joogo dal iyo dibadba ha joogo shaariyada ha lahaado islaamka waxaan u banaandhigaynaa masaajidka arkaysaan ee dhowrka kun ee qof hareeraha ay ka taagan yihiin ee hanti la'aanta ay ku dhacday ee maanta xoog mooye aanan xoolo u hayn haddaanu nahay odayaasha qaryad galle inay u qabtaan waxqabadka nin walba intii uu u qaban karayo waxaan u sheegayaa muslimiinta ku nool dalka iyo dibaddiisaba meeshan aanu taaganahay waa shangale waa qaryad balaadhan ceelka buuhoodle wax yar buu ka da'yar yahay inta oo qarni oo u dhistaana masaajidkiisu wuxuu ahaa masaajidka yar sarabka ah kuma filayn dadka ku tukanaya iyo muslimka waana dumo waa ciiray waxaanu damacnay oo muslimiinta aanu u soo bandhignay masaajidka in wax laga qabto qofkii la baxaya sadaqo iyo qofkii wax taraya islaamima inuu wax taro masaajidka waanu u yeel qaadnay annagu seeska iminka muuqdaanu dhignay wax kale oo aanu haynaana ma jiro cid wali wax noogu dhiibtayna ma jiro muslimiinta waxaan leenahay khayrka cidii ka qayb galaysa inay ka qayb gasho kana qayb qaadato masaajidka oo wax loo qabto dadku wuxuu ku tukadaa quraacda balbalooyinka aydu ku tukanaya dadku Ibrahim Abdulqaadir Jabaan Samnews TV buuhoodle.